waxaa gudaha dalkaasi Jarmalka mudooyinka u dambeeyay ku soo badanaya dilalka ay isu geysanayaan dhalinyarada Soomaaliyeed ee ku dhaqana gudaha wadankaasi Jarmalka. dhawaan ay ahayd markii haweeney Soomaaliyeed ay 5 caruur ah oo ay dhashay 4 kamid ah ku dishay gudaha dalkaasi Jarmalka. ayaa la mudakar ay warbixintan inooga soo diray gudaha wadankaasi Jarmalka. warbaahinta Jarmalka ayaa maalmihii ugu dambeeyay hadal hayay hooyo Soomaaliyeed oo 27 jir ah oo tahriib ku soo gashay dalkan Jarmalka ayaa dhawaan 4 caruur ah oo ay dhashay ku dishay magaalada Solingen ee wadanka Jarmalka halka mid kalena uu ka badbaaday iyadoona markii dambe isku dhigtay tareenada dheereeya ee loo yaqaan ayska si ay isku disho. halkaasina waxa ka soo gaaray dhaawac culus waxaana lagu dabiibayaa isbitaal ku yaala magaalada Solingen ee gobolka Westphalia ee galbeedka Jarmalka. sida ay xaqiijiyeen saraakiisha booliska ee gobolkaasi ilaa haddana ay ku mashquulsan yihiin sidii ay u heli lahaayeen xog dheeriya oo ku saabsan arrintaasi iyo sidii ay wax u dhaceen. sidoo kale Jarmalka waxa ku soo badanayay dilalka ay Soomaalida dhexdeeda isku geysanayaan kaas oo ku sii badanaya dhalinyarada Soomaaliyeed guud ahaan dalka Jarmalka iyadoona isku adeegsada toori halka qaar kalena ay isku dhigaan tareenada. Allaha u naxariistay Cabdilfataax Yuusuf oo dhawaan wiil Soomaaliyeed ku dilay magaalada Melbukov ayaa waxa lagu aasay qabuuraha Magvidenkov waxaana aaska marxuumka ka soo qayb galay ehelada marxuumka iyo dadweynaha magaalada Melbukov iyo magaalooyinka ku dhowdhow. Allahu akbar ku geeriyooday oo ma garanaysa gacanka ka xaqdana ay dishay ninka dilay oo isagana la yiraahdo Abu Saciid Haji Yusuf Badri. marka anagu waxaan leenahay Allah u naxariistaan u leenahay dhamaantayo intii uu ka dhintay heladii iyo qaraabadiiba waxaan u leenahay dhamaantayo maanta waxaan joognaa aaskii marxuum ku dhintay magaalada Marburg ee ku taalla bartamaha Jarmalka oo magaciisu yahay Cabdilfataax Yuusuf Axmed. Cabdilfataax ilaahay u naxariisto dhammaanteen waan dhimanayna ilayhi raajicuun walaalkeen qaaliga ah Cabdilfataax ilaahay subxaana qadirka ha u naxariisto waqti xadarkan waxaan u taaganaa waa qabrigiisa macalinka wuxuu ku dhintay magaalada Marburg ee gobolka Heesan ee dalka Jarmalka. runtii waxaan ahayn qof aan wada deganahay maxaa la dhahaa magaalada hadda tiirab u baa ku timid ilaahay subxaana qadirka waxaan ugu baryanaa qabrigiisa inuu ilaahay subxaana qadirka u waasico. warahmatullahi wabarakatuh. magacaygu waa Abdi Cabdi Xasiin waxaan ku suganahay Marburg Bidenkof aan ku aasanay marxuumka Cabdilfataax Allah yarxamu raaximiin. waa ayaa la mudakar RTN TV Jarmalka.